عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان ميدياها iyo bulshada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan anoo ah Cabdikariin Axmed Xasan gudoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo sohdimaha waxa sharaf weyn ah maanta mar kale in ma aragtay degmooyinkii Shibis Xamarweyne iyo Boondheere ay ka bilowdeen diiwaangelintii dadweynaha Soomaaliyeed ee ku nool gobolka Banaadir la socotaan hore waxaan uga bilownay degmada Shingaani oo runtii si xamaasad leh iyo dardar leh u bilaabatay maanta mar kale waxa guul weyn ah in sanabada ay noogu bilowdeen degmooyinka Shibis Xamarweyne iyo Boondheere waxa ku xigi doona degmooyinka kale waxaan rabnaa inaan shacbiga Soomaaliyeed u sheegno inaan guddiga madaxa bannaan haddaan nahay shaqadii naloo igmaday oo ahayd dalka inaan gaarsiino doorasho qof iyo cod oo aan dadku u fududeyno in awoodda iyo powerkooda iyo qofkay rabaan inay doortaan inaan u dhaweyno inaan shalay hadalay ahayd laakiin maanta in loo jeedo iyadoo ficil ah waxaan aad ugu mahadinayaa dadka Soomaaliyeed meel kasta joogaan gaar ahaan gobolka Banaadir sida xamaasadda leh iyo niyad wanaagga leh iyo rabitaanka leh ay u muujiyeen in la gaaray xilligii codkooda la maqli lahaa waa maalin weyn waa maalin Soomaaliya taariikh u ah maanta mar labaad ilaahay mahadiis waaye inay si nabada noogu socoto ilaahay waxaan ka baryaynaa in nabadgelyadaas iyo barwaaqadaas socotaa inay sii socoto insha Allah taala haddaan guddiga nahay qolo walba Soomaaliyeed iyo meel walba Soomaaliyeed waxaan rabnaa inay message-keena sida u qaataan waxaana guddi madax bannaan waxaana guddi xora waxaana guddi raba dadka Soomaaliyeed sharciga loo siiyay inay awoodda iyo codkooda gaarsiiyaan inaanu shaqada iyadana lagu caawiyaan rabnaa insha Allah taala waxaan u mahadinayaa dhammaan degmooyinka gobolka Banaadir howlwadeennada ka shaqeeya dhammaan shacbiga degan sida xilkasnimada leh ee uga qayb qaateen amniga iyo soo dhaweynta shaqada guddiga una fududeeyeen waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waa soo soconnaa annagoo rabna inaan santuuqa codbixinta idin keenno meel walba ay joogtaan waxaan rabnaa rabitaankiina inaan fiirino waxyaabaha aan aragnay sinis aan bilownay diiwaangelinta talaadada la soo dhaafay bish April 15keeda ah dadka Soomaaliyeed rag iyo dumar caruur iyo coroole waayeel iyo dhalinyaro baahida gaarka dadka qaba sida ay uga jawaabeen oo ay u soo buuxdhaafiyeen xarumaha diiwaangelinta dadweynaha ah waxay noo muujinaysaa rabitaankooda inuu aad u sareeyo waxaan rabnaa inaan rabitaankaas buuxino hadday dhacdo wax dhinaceena inaan ka gaabino hanoo dulqaataan waayo ma filaynin intaanoo qof inay isku soo baxayso diiwaangelinta nambarada waa qiyaasi intaan ka yaraan doono waa mahadsantihiin capacity-gana koraan u sii qaadnay dadka shaqaalaha waa badinay waan idin imaan doonaa insha Allah taala Soomaaliya horumaray gaartay guul baa soo socota dadka Soomaaliyeed 60 sano ku dhawaad kadib maanta inay u dareerayaan inay isdiiwaan geliyaan waxay ka mid tahay waxyaabaha taariikhiga ah waxaan rabnaa taariikhdaas cusub oo aan wadno qof walba Soomaaliya iska leh meel walba Soomaaliya ku jirta gobolkan Banaadir 1969 ugu dambeysay dad saan isku diiwaan geliya 56 sano kadib ay maanta maraysaa waxaan rabnaa shacbigaas Banaadir in insha Allah taala rabitaankooda iyo dareenkooda aan meel marino waa mahadsantiin meel walba ay joogtaan Soomaaliyeed isku diyaariya inaa isdiiwaan gelisaan meel kasta joogtaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dadkan haddii kaararkan qaataan oo la diiwaan geliyo oo wax kale u dhiman mise toos ay ugu codayn karaan kaarkan ay maanta ku qaataan waa su'aal aad u fiican aad u mahadsan tahay dadkaanu marka ay maanta isdiiwaan geliyaan waqti kooban kadib kaarkii waxay heli doonaan ay ku codaynayaan bishii Juun 30keeda meesha ay iska diiwaan geliyeen in ka codayn doonaan waxay dooran doonaan xildhibaanka golaha deegaanka waxay dooran doonaan duqa magaalada Muqdisho waxay dooran doonaan golaha u yeelan doona caasimadda gobolka Banaadir marka shacbigu meesha iska diiwaan geliyeen ay ka codayn doonaan kaararkooda